degmada Horfadhi oo ka tirsan gobolka Cayn oo ka xigta dhinaca waqooyi oo ah magaalooyinka ugu qadiimiga gobolka Cayn ayaa waxa ka dhacay barnaamij lagu taageerayay shirka ka socda magaalada Laascaanood. Barnaamijkan ayaa waxa isugu soo baxay qaar ka mid ah ciidamada SSC, odayaal, culumo, dhalinyaro, haween iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyn halka waxa ka hadlay odayaasha magaalada Horfadhi, sidoo kale waxa kula dameeyay haween, dhalinyaro. Ugu dambeyntii halka waxa soo xidhay taliyaha ciidanka SSC ee magaalada Horfadhi. waxaanu barnaamij u nahay oo taageeraynaa shirka garaadada iyo odayaasha iyo aqalada iyo gudida iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka ka soconaya Laascaanood baan u barbar taaganahay oo taageeraynaa oo halgan aan ugu jiraa. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa kii lagu guuleysto ee lagu liibaano kaayaga iyo kooduba inuu noqdo. waxaa lagu taageerayaa kacdoonkii barakaysnaa ee ka dhacay magaalada Laascaanood. dhammaan dhalinyaradii iyo haweenkii soo abaabulay waa u mahad celinaynaa. waxaan kula halkan uga mahad celinaynaa gudida 3 oo talada fiican iyaguna soo jeediyay. waxaanu taageeraynaa shirweynaha ka furmaya Laascaanood, ismada, uqaasha, culimada, ninkarboodka ee labada beelood ee walaalaha ah dhulbahanta iyo fiqishin. insha Allah wixii ka soo baxa oo khayra waan barbar taaganahay, cudud iyo calaf iyo maalba waan la barbar taaganahay. waa soo dhawaanaynaa, xabad baa inoo ballana. ha guurina, ha tegina, xabad baa inoo ballana. taasaa inoo ballana, taa ogaada. wax kale oo jira ma jiro. guura idin odhan mayno. taasa xabad baa inoo ballan. maamulka Soomaalidiidka ee SLM waxaan leeyahay dadka iyo dalku waa Soomaaliya. SSC baana iskale, annagaana u dhimanayna. annaguna mulkiga iyaga yahay. dhuldoon ma tihidina, dhuldoon baa tihiin. dhulkiinu haynin qaado 4 mitir baa dhulka ku leedihiin, dhul ma lihidina. maamulka Soomaaliland ee argagixisada ka soddonka sano la fahasita waxaan leeyahay dad dalka iyaga si nabada noogaga bixin weydaan lafii un baa update layni ku sameynaya. lafa adin badan wadataan un baan ni sameynana oo 30 sano dambe aad si xambaarsanaataan un baan naga helaysaan. ismadayadaanu la talanahay, ismadayadaanu waxay soo jeediyaan taageerana 3 iyagu qodobada soo jeediyeen baanu taageeran. halkan waxaanu u taaganahay annagoo ah degmada Horfadhi oo ka tirsan gobolka Cayn inaanu taageero kacdoonka ka jira Laascaanood ee SSC gobolada SSC lagu hayo ee laga dhiidhiyay waxa xun iyo xasuuqa lagu hayay. taasaanu taageeradeedii halkan u taaganahay. aqli saliimihi ma ogola. waan ku dilayaa, anaa ku maamula, wax kuma weydiinayo. inooma maaragtay qaybsana awoodda iyo maamulku wax la yeeli karo maaha. aqli ka liitaa jira, waan ku dilayaa ii taagnow. aqli ka liitaa ma jiro, waan ku xasuuqayaa raalli ku ahaw. waxaanu leenahay si nabadgelyo nooga taga. dhiigayagii waad ka dheregteen, waxba idinkuma dhinna. dulmi baad ku mariseen, wax la qaadan karo maaha. gaal iyo muslimba waa diidan yihiin, annaguna waanu diidanahay. haddii allihiin alla yahay oo aad islaam tihiin naga taga. haddii allihiin alla yahay naga taga. awalan waxaan ku taageeraynaa shirka isimada iyo garaadada iyo gudida 3 ahayd ay ka wadaan magaalada Laascaanood. ayaynu marka koowaad taageeraynaa annagoo ah degmada Laascaanood, degmada Horfadhi oo ka tirsan gobolka Buuhoodle. shucuurteeda waxaan ku muujinaynaa awalan marka koowaad inaan soo dhaweyno oo aan taageerno shirka beelaha dhulbaante iyo fiqishini ee ka socda magaalada Laascaanood. Alla subhanahu wa ta'ala shirka taabageliyo insha Allah ta'ala tawfiiqda Ilaahay baa haya. waxaan leenahay wixii dayacan horeyno ka dayacmeen markii hore. hadda hadii Rabbi subhanahu wa ta'ala is waafajiyay inuu aqligu midoobo insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inay ka mid dhalaan insha Allah ta'ala. qodobna waxaan leeyahay maamulka Soomaaliland oo deegaamada hadda ay ka banaan baxayaan oo ay ka soo taagan yihiin qaabku wax u waday. waxaan leenahay isagana waxaad moodaa in ay ka dhamaaday xilligii deris wanaag bayna ka dhaxeeyay. hadda wixii ka dambeeyay insha Allah ta'ala ku saabsan yahay aanu u nimid ee u soo banax baxnay ee bacadka u taaganahay waa dhibaatada ka taagan Laascaanood iyo xasuuqa lagu hayo dalka iyaga iyo dadka iyaga.
ee culimadayadii iyo codkarkayagii iyo dhallinyaradayadii iyo ubaxayagiiba la laayay ee uu laayay maamulka u wato Muuse Biixi marka hore waxaan ka hadlayaa anigoo ka hadlaya degmada Hurfadhi magaca Hurfadhi ama magaca Buuhoodle waxaan aad u taageersanahay walaalaha iyaga curiyay dagaalka ka socda kacdoonka ka kacay magaalada Laascaanood marka hore waad mahadsantihiin halka aad ka bilowdeen ka wada waxay ila tahay ninaan awal la gumaysan jirin hadduu maanta u dulqaato in la gumaysto deynagaaba waxba ahayn inagaana halka isgaarsiinay maanta isaaqnimo baabiyeeno wiilasheena yaryar iyo ubaxeena ma laayeen olaama kuma laayeen يا بدقاتها إنك دشيء بدي بدقاتها إنك Muuse Biixi waxaan leeyahay adeero isma naqaano waa in isma qallaa waxaan leeyahay intaan taasoo kale kugu dhicin aroy hawsha ciidankaaga isagoo nabad kala bax meesha waa talo waxa la yiri Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ninku wax ku siiya wax badan baad aragtaa laakiin ninku wax ku sheego wax baad aragtaa kula taliya aroy intuu nabad qabo ciidankaaga kala bax meesha marka xigta waxay meel walba noo marinaya dhulbahanta isaga islaynaya war anagu isma laynano rag iyo dumarba cadiifada waanu ka simanahay biirqaatayaal manihin afar wiil yaryar oo aasasabatay oo aad ku tiri halkan baan idin geenaya iyo sidaan idin ka dhigay darajaan idin siinaya maanta anagoo haweena ayaa ka dhiidhiyayna maanta anagu waxaan la talanahay oo la mowqafnahay cuqaasheeda caaqiladayada garaadadayada haweenkayaga iyo wixii soo lagaga soo jeesto balse waxaan leeyahay Muuse maxaa dareemisay xagee maraysa ayo baleeyo hadaba oragayga la dhameeyay dhaxan baan dareemayaa oo dirkii Soomaaliyeed oo hadaahinina war wixiina kala gaadhay waqayaad ku kala baxdaan oo kafaayiga shaaha allow koob ku wada cabtaan oo ismaana hurayno hilbahayagiiba isku yaa halkan dagaal baan ka alcaaminaya ninka caynaba ka soo hadlayo oo lahaa dhulbahanta nabadgelyada adkee boqol iyo konton nin baad naga qabtaa nabadgelyada adkee baad leedahay ودجال باينو بلنا دجال باينو بلنا waxaan taageerayaa waan soo dhaweynaya gudi maxaan ku dhahay garaadadayada iyo waxgaradkayada iyo aqoon-yahanadayada iyo maxaan ku dhahdaa cuqaashayada shirka uga furmaya magaalada Laascaanood kaasoo ay ka hadlayaan arrimaha masiirka gobolada SC iyo ummadda ku dhaqan waxaan rajaynayaa in insha Allah ay noqoto mid lagu guuleysto in ay noqoto mid guul lagu gaaro in ay noqoto mid maxaan ku horumar lagu gaaro in ay noqoto mid maxaan ku dhahdaa qadiyad iyo midnimo lagu helo waxaan u rajaynayaa beelaha dega SC gobolada SC waxaan u rajaynayaa midnimo waxaan u rajaynayaa maxaan ku dhahdaa qadiyad waxaan u rajaynayaa in ay noqdaan anigu waxaan halkan fariin dheer uga dirayaa jamhadda SLM muddo 15 sano way gobolka Sool ka waday xasuuq waxayna xasuuqasay hal doorka gobolka saa darteed waxaan leeyahay Soomaalidu waxay ku maamaadaa ninka raaga intuu ka bursado baaqi ku nacay ila doqon usbuuranay iska ka barataa saa darteed waxaan leeyahay dadkan waad xasuuqdeen ummadan waad xasuuqneen hal doorkii baad ka dhamayseen waxba idin kuma hadhin xilliga aad bixi lahaydeen baa la joogaa hadii aydan baxayn oo aad ku bixi weydaan mar hadaad waxba idin ku hadhin wadanka hal doorkiina aad ka dhamayseen 15 sano aad xasuuqaseen waxaan idin leeyahay iskaga baxo waxba idin kuma hadhin hadii aad bixi weydaan oo aad ku bixi weydaan muddo kooban hadaad ku bixi weydaan kaasaa inoo ballana kaasaad ku baxsan kaasaa inoo ballana Najaa Maxamuud Salaad warbaahinta Dalsan magaalada Buuhoodlo